inaad tiraahdo sida quraan heesta inay awal ahayd maaragtay xadiis oo kaleeto aad aniga xadiiska qaldo kale aad quraankii wuxuu ku soo daray hees marka horta taas waxaan ka leeyahay waa taa oo waa ku qaldanaa in aan ku soo daro. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دقالي قاعد لهانتي ملك سادون كاكتوتا واحد لين سود وهذا كنالك سبسكرايب نوصاره مقال كلفتيسان لاي قريه وشير قريه لو ذاك أصحابتي هذا فكر كاجي aragtidaadu aad buu muhiim inuu yahay isku day inaan xaq hoose aad noogu reebtaan mar labaad iyo muuqaal cusub waxaan ka wada hadlaynaa Sharma Boy oo runtii arimo badan ka wada hadlay runtii munaasabadii galmudugna waa ka hadlay ama yani sanad guradiis galmudug ee 24 bishii August beegneed sidoo kale wuxuu ka hadlay mowduuc barihii ugu dambeeyay baraha bulshada ka haystay oo aanan adigu ka soo hadal oo runtii hees isaga uu soo qaaday oo ahayd in ku jireen erayo runtii aan imaan ilaahay aayad quraan yani ay ku jirtay qayb kamida arrinkan uu ka hadlay waxa rabaa bal inaan mowduucaasi wada dhageysano oo aad wada dhugano oo aad la daawataan waxa kanaalka muuqaalka kanaalka la soo galay wax weeyaan Diraac Official in wiilkaasa YouTube-kiisa la soo galiyay in soo dhameystiran ka soo daawada in dhowr laasin marbu soconay waxyaalo badan uu ka hadlay laakiin inagu mowduucan qaybta ina cajabisay ee ka hadlana wax weeyaan qaybta ku aadan muxuu ka yiri heestiisa ugu dambeysay oo soo qaaday ee ahayd runtii wuxuu soo dhaafay caalam tara aayadaas ku jirta qayb kamida runtii siyaabo fara badan dadku waa uga falceliyeen bal arrinkaasi muxuu ka yiri bal arrinkaasi Sharma Boy wuxuu ka yiri ayaan rabaa inaad la dhageysataan ee ula socda asxaabe igu sawirday mid horta qofka bini'aadanka khalad waa ka dhacaa beena adigaagan chance raadinayo oo maaragtay qofka bini'aadanka markuu khalad ka dhaco adiga muhiimadda waxa laga rabaa oo macnaha laga baahan yahay qofkaas walaalka qaladkiina u sheegto ina saaxiib macaan qaladkaas agashay kuma manaficna laga yaabo inaad horta wuxuu yiri qofka bini'aadanka gaf iyo khalad waa ka dhaca beenaha bini'aadan baynu nahay inaan khaldana been ku sheegay mar laba iyo saddex mar iyo laba iyo saddex afar baa khaldamana laakiin intaan halkan soo fadhiisana anagu qof kasta wuxuu ku khaldeeyaa wallahi runta fiican waa u sheegnaa laakiin dadka markaad u sheegto dadka qaar kugula yaabayo ku dhaadaan muxuu yani ka hadlaya wiilkani ayaa jira dadka qaar yani inta ku soo garaacaan si dad badan wanaagsan kula hadlay aad baad ugu mahadsantay oranayaan way jiraan walow dadka cagsiga u shaqeeya ay badan yihiin oo iraahda waxa ka galay waxaan doonaan sameeynaya adigu dad noocaas u hadla way jiraan badankooduna yani social media lagu jira social media-na qof kasta wadhan ku qaado waa u qaadi kara Soomaalidan kara marka balayno muuqaalka hore ugu siiqno ogaal dari awgeed kaaga dhacday faante marka wakaasa okay markii la dhahayo hadda waxaan ka soo qaatay hees aan soo saaray jirtay uu soo dhaafay caalam tara ku jirta marka aad bay wahayd markii laga soo tago quraan inay tahay waan ogaanay caalam tara sax quraan ogaa inay quraan tahay sax laakiin waxaan kala ogaa haddana in ay dadka dhaxdooda amuli wari koonfurka xaqooda u badan yihiin qofka hadalayn inay tahay oo magaalada ku jirto xitaa dadka waaweyn ay dhahan caruurta waalidkooda waa waalidka waxay ku dhaca caruurtooda markaan uu soo dhaafay in caalam tara markaan uu soo dhaafay runtii wuxuu yiri bulshooyinka Soomaaliyeed intii hore ayaa runtii dhexdooda ayay kelmadana ku jirtaa uu soo dhaafay caalam tara anigu runtii ma maqal meel laga isticmaalo qofkaas uu soo dhaafay caalam tara qofka marka runtii uu degdegayo kale ama uu yani khalad sameeyo ayaa loo adeegsadaa ma filaya marka koonfurayta saan jecelahay anigu Soomaalidan gar yani muuqaalka ku suqno bedaan faante ana horta soo soo qaatay horta taas maadada san kornaa dadka jaanis raadiska quraanku soo qaatay ashhadu an la ilaha illallah alla kan yeelaya inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un heestu quraanku soo daro waas ayda naabadin baa ku dhaabay okay wuxuu inoo sheegay in dadku ay boonboonayaan been ma aha dadku ay boonboonayaan hadii even xitaa ay si wanaagsan wax ugu sheegaan oo yiraahdaan ereyada noocaas ah adeegsanaysa ama yani aayadaas oo kala adeegsatay yani halka munaasib kuma haboona runtii waxa laga yaabaa inuu qaadan lahaa waxa laga yaabaa inuu oran lahaa waad ku mahadsantiin waxa laga yaabaa inuu runtii yani aad ugu hambalyeeyaa oran lahaa war wax waad ii sheegteen aad baan idinka mahadcelinayaan sidoo kale waxyaalo badan buu ka hadlayaa oo bal ku khuseeya isaga laftiisa arrimihiisa iyo waxyaalaha sida wax socdaan oo runtii dadka qaar buu leeyahay waxay ka xun yihiin horumarkayga heesayga la dhigista waxyaalo noocaasna bal muuqaalka ku jiraan ee wala socda
ogahayba anaa og inay dambi tahay qur-aanka kaba tagbo heestoo dhan in la dhegaystaa oo maaragtay lagu jaasaa aniga shaqsi aan waa qaadaa oo ku jiraa laakiin dambi aan u arkaa okay warka hore war soo dhaaf wuxuu yidhi heesaha gebi ahaanba waa dembi anigu waan aaminsanay inay dembi tahay anigoo qaada ayaan aaminsanay inay dembi yihiin anigoo ku jaasa ayaan ogay inay dembi yihiin kana waa mawduuc kale hayaay bal idinku maxaad ka leeyihiin hore culimadu uga hadashay culimadu waa mas'ala khilaafiya waa la isku hayaa dadka qaarna heesaha way xaaraantimeeyaan dadka qaarna waxay yidhaahdaan waa mas'ala khilaafiyo yacni adigu wax xaqiiqa kama sheegan oo way ka gaabsadaan marka su'aalaha noocaas la weydiiyo waliba dadka caqliga u saaxiibka ee ilaahay cilmiga badan siiyay diinta ku aadeen waxaa laga yaabaa inay ku degdegin inay heesaha xaaraantimeeyaan soo meedan kara laakiin siflaboodka oo dhan heesta way xaaraantimeeyaan soo meedan kara aan ku socono marka naa tiraahdo sida quraan heesta inay awal ahayd maaragtay xadiis oo kale ani xadiiska khaldo kale quraankii wuxuu ku soo daray hees marka horta taas waxaan ka leeyahay waa taa oo waa ku qaldanaa in aan ku soo daro quraanka wuxuu sheegay inuu ku khaldanaa inuu ku soo daro heesta inuu ku soo daro yani aayadaas wuu ku khaldanaa isagaaba ogbaba laakiin su-aashan isweydiida mudan maxay tahay haddii aad ogtahay sharma boyow maxaad ugu soo dartay maxaad bal ugu soo dartay waabaad ogtahay soo maha inay hadal hayn dhalinayso mise adigaa xiiseynaya in heestaadu hadalay samayso anuu hore oguma soo hadal heestaa lafteeda xitaa reaction kamaa soo bixin xitaa dadkii mawduucyada ka hadlayay kuma aan jirin intaa waan eegay iminka waxyaalo fara badan oo baraha bulshada ku jiro anigu kuma degdegay runtaa fiican waan ka gaabsadaa waayo waxaan ogahay runtii in haddii aan ka hadlo aan positive negative haddii labadaba uga hadlo in runtii dadku qaar ay ugu taageeraan dadka qaarna ay ugu nacayaan walow runtii dadku ay inta xun ay wax ka eegaan oo yidhaahdaan dadka qaarba waxay ugu odhan lahaa sharma boy baa sidiisa ugu kacsatay soo meydaan kar bal muuqaalku waan iska soo gabagabaynayaa in yar baa hadhay intaa igula samra waa kana in ku talagal waa quraan ee dadkan maaragtay quraanku ugu dhex dar صح وما ندرنا يقول خير وما ندر صح ما قلت تفكر انه يوجي انت عقلك انت عوانت هذا كان اني معناه وقاعدان درتي سودايا حتى انا وش يعني مر واحد ايغا ما قال ادي كربودان دولك اسلا جرانت ارك اسكو قراعه بس فينك يا دان قران وكسو در مدح او قرحيو انا سلاش about heerka aan rabo ani waa joogaa ma garatay waa ku qasbantaa anigaas marka inaa aan soo gashid aad daawatid aad ka dhexraadaysid quraanka sax weey horta imaada daawan oh my god wuu kacay dhiiggiis pressurekiis wuu kacay wuxuu waad ku qasbantaa inaad YouTube soo gasho oo aad raadiso oo aad heesayga dhageysato runtii in kelmadaasi hadalhayn badan madhanaysa waxa laga yaabaa si keenay kelmad ka dhacday in taageerayaal badan ku waayay marka waxaan leeyahay Sharma Boy bal ha degdegin dadka waxaan wadaa wadadka YouTuberska qof taageero ku ah oo heestaada dhageysanaya kuma mashquulaya wuu iska dhageystaa TikTok ku soo duuba wuu soo dhaafay alamtara waan arkay dad badan ku heesay ku taasay waan arkay soo meedan kar marka in majala muuqaalkeena ku dheeraado ujeedada ugu weyn ee muuqaalka uga hadlay wax weeyaan dad badan oo social media ku jira ayaa ka falcelinay heestan dad baa si positive si negative labadaba uga falcelinay marka anigu waxaan aad u tahkiidinayaa ah inuu Sharma Boy uu qiray inay khalad tahay inuu ereyadaas ku soo daro laakiin ay ka dhacday bilaadan dakhalad waa ma khaldama way ilaahay bilaadan bin khaladna soo meedan kar inaan ku raacin inaan ku qaadin aad baad maasantiin majali barnaamijkeena ku dheeraado muuqaalka la gareeya oo share gareeyo loo wadaag asxaabtada isla waqtigan aan muuqaalka duubayo waxa weeyaan hadii aan eego saacada 12kii istixlaatan mir waxa laga yaabaa inaan insha Allah ilaahay raahdo 20 mir aan ku dhid gareeyo bacdal muuqaalka waxaad heli doontaan بعد أن يلاحظ حتى يبلغ قادو بعد البرد إن شاء الله جل هذا لبيتهم كي تاني قاعدين واحد شعلين مقارنة أدود ما ستي